بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله تعالى إلهي وحينوت المامي وتعاونوا على البر والتقوى وروح السكر الميستان وناقة يعبسده يسكر الميستبا إلهي إلهي وحنبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم الله يرحمكم من في السماء. وركوب دولك جوجا حريصة ضدكو إذن كان إلهي سماضو إذن كان حريصانيا إلهي وحو النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ونوتما من النبي محمد عليه الصلاة والسلام صوبناه أنه يعني أدونك إلهي وحو لجرا وقرب كيس هيا انتو يسوون حريصانيو كان ولا الكيس بلك ولا ربع والإنسان عنده حريص أدونك كان إلان كان ير إنك اللي نقول dadkeena awlaada qurquruxda badan haysta ee madaxu aanu ka weynaanin ee noocan uu hadda uu yahay aanay ahayn ayaa ilaahay ku eegay inaynu ka dhibtaa reerka la qaybsano sida laga warramayo gabadhu waa waalan tahay guriga waa kan hoteelkan hadda halkan markay waalatay dab ku dhajisay ilmihii waa kan waa nooca kan ninkii dhalay awood iyo itaal uma hayo marka waxa weeye ilaahay horta waxaynu ka baryeynaa allihii in abuuray waxaynu ka baryeynaa ilaahay inuu caafimaadiyo caafimaadka ilaahay baa haya qof binaadana ma hayo hayadina ma hayso waxa haya allahu waahidul ahad. ilaahay waxaynu u weydiinaynaa ilmahan in ilaahay uu caafimaadiyo inuu ilaahay ka baryeynaa caafimaadkiisii ilaahay uu soo celiyo. marka waxa la rabaa biidin ilaahay tacaala dadka islaamka ah ama halkan booda cadi ha joogaan xaq horta awalan wax loogu leeyahay reer booda cadi ilmaha kan inuu arigiisa u iibiyo inuu geeliisa u iibiyo inuu maxaan kulan la qaybsado inuu hadduu lacag haysto lacagtiisa uu ka qayb geliyo reer booda cadi awalan marka hore iyaga waa ka saaray. marka labaadna caalamka islaamka waxaanu u weydiinaynaa cid kasta oo fiidiyowga uga aragtaa inay ilmahaas oo 5 sano ay ka gabagaba tahay oo tubadaasi sidii looga saari lahaa ay hadda joogto in insha Allah tacaala loogu soo dadaalo wixii lagaga saari lahaa biidin ilaahi tacaala loogu soo dadaalo oo loo naxariisto sadaqada. waxaan ku ururinayaa nin kansar helay oo jaamacad dhiganayay oo la yiri kansarkaagu dawo male asma Allah wa ni'mal wakiil oo la yiri kansarkaagu dawo male oo dabadeedna u yimi reerkiisii oo waan soo dardaarmaya dabadeedna u yimi isagoo jidka maraya magaalo ugu yimi gabadh ururinaysa intay saylad bay joogto sareebadii buu soo maray sareebadii wuxuu yimi gabadh ururinaysa qanjaha iyo xuubka iyo saa loo xooro ku guraysa salad dabadeedna wuxuu yiri gabadhani maxaad ku falaysaa waxa kan waxaan haystaa caruur agoona waxaan ku dhaqaalayo uma aan hayo laakiin waxaan u kariyaa xubabka iyo qanjahaas intaan kariyo baan maraq ka saara maraq asan cabsiya kii ay agtiisa ka guranaysay ee gisaarlaha ahaa ama neefka qalay ayuu wuxuu ku yiri 2 sano waxaad ugu dhufataa 2 kiilo hilib waa ninkii kansarka qabay dabadeedna 2 sano ayaa lacagta u sheegtay dabadeedna wuxuu labadaas sano lacagtii buu u dhiibay ay labadaas sano hilibka ku sii lahayd wuxuu meeshii ka tegay isagoo ilaahay caafimaadkiisa u soo celiyay oo dhakhtarkiisa uu ku noqday warbayl baad buu yiri mise hal lama haya warmiyada kii baalka qabayay mihi maxay ilaahay ku caafimaadiyay sadaqadii baa sabab ilaahay uga dhigay caafimaad ku helo. marka barakallahu fiikum qof kasta oo inaga mid ah ama halka ha joogo booda cadi ama meel kale ha joogo dabadii ilaaba waxaynu maartay aynu ilaahay dartii adoonka yar ilmaha yar ilaahay dartii loo caawimo إلهينا وحن أوي ديننا أدونكن إلهي
maxaan ku dhahay ilmaha yar ha u caafimaadiyo isagana sabr ilaahay ha ku siiyo waalidka ninka dhalay ee imtixaaman ee xaaski waalan tahay ee guriga guban yahay ee ilmahan nooca kan yahay inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina